waxaa maanta oo taariikhdu tahay 10kii bishii tobnaad 2020 noogu yimi kormeer shaqo xarunta taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Rooble oo booqasho noogu yimi si uu xogogaal ugu noqdo una barto howlaha booliiska iyo saraakiisha sarsare ee ka shaqeysa xarunta Prime Ministerka waxa qodobadiisii uu baarlamaanka kaga hadlay ugu horeeyay dhowr qodob 8 qodob iyo meelahaas ahaayo ugu weyn ay ahayd amniga sida awgeed amnigu wuxuu ka bilowdaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed si uu marka ugu kuurgalo u barto ama isu bartaan saraakiisha sarsare ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo xaruntooda wuxuu soo booqday hogaamada qaybaha taliye-xigeenada xafiisyadooda wuxuuna aad u daneynayay inuu baloogaado sida booliisku u shaqeeyo waxaan uga warbixinay sida booliisku u shaqeeyo shuruucdu ku shaqeeyo magaalada Xamar iyo maamul goboleedyada dalka sida ay qaybaha hogaamada fadhiyada madaxa bannaan ee kala duwan ay u shaqeeyaan sida hawlgallada u sameeyaan sida xuuraanka u ururiyaan sida dambiyada u baaraan shuruucda waxaan uga warramnay muxuu ahaa Prime Ministerka oo ula kulmay saraakiisha sarsare hogaaminaysa qaybaha iyo hogaamada isagoo u arkayay muhiimad gaar ah inay u leedahay xaaladda lagu jiro hadda oo dalka amnigiisu sugan yahay wuxuuna nagula dardaarmay inaanu kordhino muxuu ahaa dadaalka ciidanka booliiska uu ka wado wuxuu ku amaanay ciidanka booliiska siday isugu duuban yihiin siday hawshooda iyo qaybaha iyo waaxyaha kala duwan ciidanka fadhiyadooda kala duwan ay qabtaan aad iyo aad u bogaadiyay wuxuuna hadda kula dardaarmay ciidanka inay kordhiyaan inay muxuu ahaa u shaqeeyaan shacabka inay shacabka u soo dhawaadaan inay shacabka u naxariistaan inay shacabka gacan ka helaan iyo sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen shacabka ummadda Soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska ayuu aad iyo aad nogala dardaarmay waxayna ahayd saaragii ugu horeeyay uu yimaado iyo hay'adii ugu horeeyay runtii uu soo kormeero waxaana taas tusaysaa ahmiyadda gaarka ah ee Prime Ministerku siinayay amniga gaar ahaan guud ahaan gaar ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed